waxaan runtii alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ka soo noqonnay safar gaaban oo aan ku tegay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaanan rabaa inaan si kooban safarkaas haddii alla yiraahdo warbixin yar oo kooban aan uga sameeyo waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan aad ugu mahadceliyo ilaahay baa mahad oo dhan iskale laakiin shacabka reer Jubbaland qiimaha badan ee isugu jira dhammaan qaybaha bulshada haday yihiin haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka ciidamada qalabka sida iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhaweyntii iyo muddadii aan joognay sida ay noola wadaageen fikradooda iyo talooyinkooda iyo caqligooda iyo maxaan ku idhaahdaa xaaladaha jira waxa aniga safarkaygu uu bayskiisu ahaa maadaama la gelayo xilligii doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland in campaign-kaygii maadaama aan ka mid ahay murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland in aan murashaxnimadeydii aan hawsheedii guda galo iyo campaign-kaygii taasoo run ahaantii xilligan ay tahay in loo wada diyaar garoobo doorashooyinka heer parliamentarian oo Jubbaland iyo heertii madaxweynaha kursiga madaxweynaha oo isku xiga dabcan processkooda waa hadda bilaabanayo waxaan rabaa inaan safarkaas uga mahadceliyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan idhaahdo waa mahadsantihiin ilaahay maaragtay idinka abaalmariyo soo dhaweyntii iyo qorax joogii iyo maxaan ku idhaahdaa hawshii ballaadhnayd ciidamadii ammaanka sugayay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay saxaafadda si gaara saxaafadda reer Jubbaland aad iyo aad ayaan doonayaa inaan ugu mahadceliyo iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba intaa marka laga tago safarkaygu guul ayuu ku soo dhamaaday waxaan kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada waxaan kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka waxaan kulamo kala duwan la qaatay cid kasta oo ay ahayd in aanu kulanno ama ka wada hadalno xaaladaha taagan oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya mudane Axmed Maxamed Islaam oo aan filayo inuu ka mid noqon doono ama sida la qiyaasayo murashaxiinta tartami doona waxyaabaha aan ka wada hadallayna waxaa ka mid ah sidii doorashadu habsami ugu socon lahayd sidii bulshadu uga wada qayb qaadan lahayd sidii deganaan iyo amni iyo maxaan ku idhaahdaa si daahfurnaana doorashadaasi ugu dhici lahayd lagu tartamo ciddii ilaahay u qoro ee ku guulaysataana ay xilka qabato oo lagula shaqeeyo ciddii maxaan ku idhaahdaa weydaana ay kula shaqayso cidda heshay taa ayaanu waxyaabahaanu ka wada hadallay ka mid ahaa run ahaantiina ujeeddada ugu weyn ee aan anigu ka hadlayay waxay ahayd in ayada oo aan colaadi jirin oo dhibaata jirin oo isrixiix jirin dadku midaysan yahay doorashadaa la galo ciddii ku guulaysatana lagula shaqeeyo wax dhibaata iyo wax maaragtay mushkiladana aanay meeshaasi ka dhicin magaca iyo sharafta Jubbalandna la ilaaliyo shacabka Jubbalandna rabitaankiisa la ilaaliyo dabcan 75 xildhibaan baa wax dooran doonta 75 xildhibaan waa in ay soo xulaan odayaasha dhaqanku aanay dhicin faragelin meel kale ka timaada ama maamulka ha noqoto ama meel kale ha noqoto in aanay wax faragelin dhicin odayaasha dhaqankana looga baahan yahay inay u soo xulaan baarlamaanka dadkii u matali lahaa shacabka reer Jubbaland waana rajaynayaa inay hawshaasi sidaa u dhici doonto waxaa jirta murashaxiin badan aniga kaliya ma aha anigu murashax baan ahay taydaan ka hadlayaa laakiin murashaxiinta kale waxaan ugu baaqayaa in ay la yimaadaan fikir midaysan oo doorashadaas road mapkeedii iyo qorshayaasheedii iyo qaabkay u socon lahayd min bilow ilaa dhammaad doorashadu ma aha maalinta codku dhacayo doorashadu waa processkaas in la hagaajiyo cid walibana ay ka qayb qaadato process la og yahay iyo road map la wada og yahay oo la isla og yahay oo aan maxaan ku idhaahdaa mugdi ku jirin oo cid gaari ayna gaar u samaysanin in miiska la soo saaro oo ka lagu wada shaqeeyo guddigii doorashada iyo xuduudaha in degdeg loo magacaabo iyadoo laga wada tashanayo oo maamulka maxaan ku idhaahdaa Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha hadda talada haya
iyo murashaxiintu ay ka wada tashanayaan in guddigaasi la sameeyo ciddii goobjoog ka noqonaysa ama korjoogto ka noqonaysa doorashadan ay korjoogto ay ka noqoto doorashadaasina ay si xalaalo u dhacdo waxaan rabaa in aan sheego in safarkaygu aanu ku koobnaan doonin magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ah ee aan tegi doono intii suuragal ah dowlad goboleedka Jubbaland deegaanada ama degmooyinka ama gobollada la tegi doono haddii la yiraahdo shacabka reer Jubbaland ayaan ka rabnaa cod oo ay matalayaan xildhibaanadu ka ayaan cod ka rabnaa waxaan rajaynayaa ciddii ku guuleysatay in lagu la shaqayn doono mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin anigu safarkaygu intaas bayskiisu ahaa dad su'aalo qabtaan way weydiin kartaan laakiin waxaan rabaa in aan mar labaad markaan Kismaayo tagayna waa sheegay haddana waa ku celinayaa aan ahay murashax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland haddii la yiraahdo xilligan soo socda ee 2019 bisha August dhici doonta haddii la yiraahdo waxaan mar kale soo dhaweynayaa una mahad celinayaa cid kasta oo murashaxnimadaas ka qayb galaysa ama aanu tartami doono waxaan shacabka reer Jubbaland u rajaynayaa midnimo walaalnimo iyo inay gacmaha is haystaan cid kasta oo ay tahay inay ka qayb qaadataan ay ka qayb qaadato gaar ahaan odayaasha dhaqanka doorka ay leeyihiin in looga dambeeyo lagu ixtiraamo aynana dhicin mugdi iyo waxyaabo doorashadaas mugdi gelin kara intaba aad baa u mahadsantihiin